kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo kuwa deegaanada Soomaalida waa 24 Abriil kowda bisha Ramadaan qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah maxkamadda ciidamada militariga Soomaaliland oo riday xukun 10 sano ilaa 12 sano oo ay ku riday 5 askari oo ka tirsan ciidamada booliska qaranka koronka diyaaradaha Barawe iyo xarumo saldhig oo lagu weeraray gaadiid qaraxyo ay ku reeran yihiin shirkadda Fly Dubai oo sheegtay in xukuumadda Soomaaliland ay kula jirto wada hadal madaxweynaha Puntland oo ka hadlay heshiiska dhexmaray golaha isbeddeldoonka Jubbaland iyo hogaamiyaha xukuumadda Jubbaland Axmed Madoobe maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland ayaa sheegtay in ay xukuntay 5 askari oo ka tirsan ciidamada booliska kuwaasi oo lagu riday xabsi dhan 10 sano ilaa 12 sano askartan ayaa lagu helay dambi ah awood sheegasho iyo laaluush qaadasho iyadoo ay dacweysay muwaadiniintu dhalatay Soomaaliland kiisaska askartan iyo gabadhan ayaa ka dhacay magaalada Hargeysa xarakada ururka al-shabaab ayaa laba gaari waxa ay ku soo rareen walxaha qarxa iyagoo isku dayay in ay weeraraan garoonka diyaaradaha Barawe balse ciidamada Amisom ee ku sugan ayaa fashiliyay al-shabaab uma suura galin in ay gudaha u galaan gudaha garoonka balse waxa ay weerar leeyeen xarumo ciidamada Amisom ay ku leeyihiin agagaarka saldhigga Barawe goobaha lagu weeraray qaraxyadan waxa degnaa ciidamada Amisom gaar ahaan ciidamada dawladda Uganda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed xarakada al-shabaab ayaa sheegatay in ay weeraradan u adeegsadeen laba gaari oo walxaha qarxa ay ku soo rareen kuna qaadeen saldhig ciidamada Uganda ay ku leeyihiin degmada Barawe ee xarunta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wali si rasmi ah looma ogin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarka madaxweynaha maamulka Puntland ayaa ka hadlay heshiiska dhexmaray golaha isbeddeldoonka Jubbaland iyo hogaamiyaha maamulkaasi Axmed Islaam Axmed Madoobe waxaan rajaynayaa inuu khilaafkaas u noqdo khilaafyadii ugu dambeeyay ee dadka Soomaaliyeed ee kala dhex jiray khaasatan maamulada ee ka dhex jiray maadaama kii ka horeeyay galmudug uu dhamaaday kii Jubbaland uu dhamaaday waxa halka ka muuqata fursad qaali oo ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inay fursadaas inay ka faa'iideystaan oo ay ka gudbaan marxalada adag oo dadka Soomaaliyeed ay soo mareen fadliga bisha Ramadaan uga faa'iideystaan ummaddu ay iscafiso danahooda ay qabsato khilaafaadka ay ka gudubto dalka si midaysan loo wada dhiso danihiisana looga shaqeeyo waxaan ugu baaqayaa in dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka siyaasadda inta badan ka shaqeeya in ay u soo dhawaadaan xaqiiqada oo maanta Soomaaliya uma baahna siyaasad ku salaysan propaganda iyo wax iska sheeg maxaa yeelay dad wax loo sheego oo la jiheeyo dadkii Soomaaliya maanta ma jiraan oo dadkii colaad iyo gaajo iyo fakhri iyo cudurro waa hagaag daawadayaal intaasi waxaynu weeg wararka caalamka iyo kuwa deegaanada Soomaalida